السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi labada ragcadood ee sunnaha ah ee la tukado salaada subax ka hor ayaa ka khayr badan adduunyada iyo waxa dhex yaallaba. marka sunnaha la tukado salaada subax ka hor uu sidaa u fadli badan yahayna waxaad halkaa ka garan kartaa inta uu leegyahay fadliga iyo ajarka ku jira waajibka salaada subax oo xilligeeda la tukado. haddaba haddii aad og tahay qiimaha ay leedahay tukashada waajibka salaada subax, aan ku xasuusiyo 10 arrimood oo kugu kaalmaynaya inaanad ka seexan oo aad tukato salaada subax waqtigeeda. kuwaasoo kala ah: 1. go'aami inaad tukato salaada subax oo aanad ka seexan, isla markaana naftaada u sheeg fadliga iyo wanaagga kugu dhaafaya haddii aad kici weydo oo aad tukan weydo salaada subax. 2. samayso cid ku kicisa salaada subax, ha noqoto qofku toosiya ama ha noqoto moobilka ama saacadda inaad ku buuxsato waqtiga salaada subax. 3. ku dadaal ducada, ilaahayna ka bari oo weydiisa inuu ku waafajiyo kuna fududeeyo tukashada salaada subax iyo cibaado kastaba. 4. ku dadaal ikhlaaska iyo inay cibaadadaadu noqoto mid ilaahay oo kaliya loola jeedo, iskana ilaali wax kasta oo dhaawici kara cibaadada sida shirkiga iyo istusnimada. 5. samayso jadwal iyo time waqtigaagana u qaybi waqti aad seexato iyo xilli habeenkii aad soo kacdo oo aad cibaadaysato si ay naftaadu ula qabsato soo toositaanka. 6. ku dadaal habeenkii markaad seexanaysa inaad u seexato dhanka midig iyo inaad akhrisato ducada hurdada. 7. ku dadaal inaad seexato adoo weyse qaba oo daahira. 8. ku dadaal habeenkii inaad xilli hore seexato sida uu yahay sunnaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam. 9. faraha ka qaad dembi iyo macsi kasta, waayo macsida iyo dembigu waxay kaa fogeynayaan cibaadada Rabbi. 10. ku dadaal habeenkii inta aanad seexan ka hor inaad naftaada xisaabiso, isla markaana naftaada aad xasuusiso geerida iyo maalinta dambe. ilaahayna subxaanahu wa tacaala hayna waafajiya khayr oo dhan.